kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada TV-ga caalamiga ETN xarunta stuudiyaha magaalada Nairobi. daawadayaal barnaamijkan gaarka waxaa marti inoogu ah isla markaana aynu ku wareysanaynaa abwaan ama maalif wiil Soomaaliyeed isla markaana saad dareemayseen da'diisu aad u yar tahay isla markaana soo saaray filin la magac baxay Isma Qabato. waxaynu ka wareysanaynaa qaabka uu dhaliyay wiilkaasi yar in uu soo saaro ama abwaanka ama maalifka filinka Isma Qabato. ku soo dhawow Faysal stuudiyaha ETN. bismillahir rahmaanir rahiim. marka ugu horeysa guud ahaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhaqan tahay gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa telefishinka cusub ee ETN kaas shaqaalihiisa iyo dhammaan dadka daawada. Faysal adiga oo mahadsan waxaad soo saartay isla markaana aad aliftay film la magac baxay Isma Qabato. maxaa kugu kalifay in aad alifto filimkaasi yaase ka dambeeyay oo kugu dhaliyay fikradda filimkaasi? kulley waxaan u maleynayaa inaan sheekada hal mar soo koobi karin. filimkan waxaan ka fikiray muddo waxaan ugu talagalay macnaha maanta marxaladda Soomaaliya haysata. filimkaas aan ku magacaabay Isma Qabato waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood. waa guud ahaan waxaan ka dhigi karaa hal filim laakiin sheekada filimka ay ka socoto waa 3 qiso ama 3 filim oo isla socdaan kana duwan filmaanta ee Soomaalida sameyn jireen. Faysal oo goorma ayay kugu dhalatay fikradda ah in aad filimkaani sameyso ama bas ayaa kugu dhaliyay in aad soo saarto filimkaani isla markaana qisadiisa soo bandhigto dadweynaha? wallahi ka fikrad ahaan filimkan aniga ayaa maskaxdayda ka soo maaxatay sababtoo ah si aan la socno Soomaaliya waxa ku dhacay burbur ilaa haddeertaana dhibaatada Soomaaliya socoto. muddana waa ka fikirayay macnaha waxyaalaha aan ku tusin karo dhibaatada Soomaaliya haysato inaan macnaha ka sameeyo filim. ma jiraan dadka la qayb qaatay filimkaani aad soo saartay ee Isma Qabato in aad soo bandhigto isla markaana uu noqdo mid la daawado waxyaabo badan aad kaga hadashay sida aad ka dhawaajisay? dabcan way jiraan macnaha dad filimkan ay la sameeyay inkastoo aan halkan ku soo koobi karin. adi qiyaas ahaan filimkan waxaa ka qayb gashay ilaa iyo 200 qof oo Soomaali ah iskugu jiraan dhalinyaro dad waaweyn odayaal ah. haddaan tusaalahan kaaga soo qaato macnaha dadka Soomaalida ay sida gaarka u yaqaaniin waxaa ka mid ah Bacalwaan Cabdi Tahliil Cabdirasaaq Quuka Allah u naxariisto uu dhintay filimkan uu ku jiraa. waxaa ka mid ah Muslima Qaasin Holoole, waxaa ka mid ah Isheega Cabdullaahi Dheeryar la dhahayo, waxaa ka mid ah Ooyaaye, waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Baadil, waxaa ka mid ah macnaha dad badan aan hadda ku soo koobi karin dhalinyaro badan oo xataa macnaha Isheeg aan rajayn doono in ay ummadda Soomaaliyeed masraxa markay soo fuulaan noqon doonaan dad ku fiican macnaha jelista in aan filimkan xataa aan ka qayb galsiiyay. Faysal ma ku jiraan filimka aad soo saartay ama ba aad dadweynaha doonayso inaad u soo bandhigto dad ayagu tahriibay oo dhibaato tahriibka kala kulmay ama ba isku dayay in ay tahriibaan? wallahi saaha marka hore ku sheegay filimkayga wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. qaybta koowaad waxa weeye dhibaatada Soomaaliya maanta qoyska family problemka Soomaalida haysata. qaybta labaad waxay ka sheekeynaysaa macnaha tahriibka iyo dhibaatada Soomaalida maanta ugu badan macnaha qarniga hadda ku jirno maanta. qaybta saddexaad waxay ka hadlaysaa Isheego qaybtaas oo aad rag macnaha Isheeg qisas sax ku dhacday ay matalayaan. waa qaybta macnaha qabiilka waxaan ay matalayaan macnaha rag arrimahaas macnaha Isheeg oo la socdaan. boqolkiina la gala toos la ogal gala qof dadka goobkiisa la soo baxo akhristo ogaayad hay maada qolko gal mi ciyalko qolka la gale anoo sheekaas ii keena miya diiriye soo socay kaale hay maada maanta haye intee mo soo dhaaruntii waa wax kala habeynaya waxa ku jiray habeene kaale intee mo soo soco wax degdega miyaa jira waa jiraan soo soco haye see wuxuu jiraa ninka ama ka taga ama ka dhoofa ka dhaxay ma jiraan bo maxaa kugu dhacay maxaa inta ka soo baxsan iskor saarnayna ana ciyalkee saan ma ku jiraana unuka see way maxaa digood qabtaa maxaa nolosha nololna aan ku jirno anaka dadka Mareykanka aadan waa istriixo haayaan lacag la qaadiyo haaya hurdada ka kac walaalo meeshan saan la noloman saan nolol ma arko hayna unuka ka balstage maxaa tiri dadkii Mareykanka bay wadaadeen Mareykanka la aaday oo cidna ma joogto هاي توصل أنا كوس عني. أيه. سيجارة كوس عني.
هاي خير الله كريم دو إلهي رالي كنقضو waxaanu doonaynay arin ugu horta ma aha waa arin soo jireen oo dhaqan oo weligeed jirtay ayay ahayd hase ahaatee sida gaarkan kugu sii soconnaa waxa weeye gabadhaadaanu doonaynay hodan warsame kaash ayaanu doonaynay oo weliba aad noo meheliso ugu doonaysaa ugu doonaysaa oo doonayno wiilkayga mawliid horta yarkan anaa soo korsaday oo carruurtayda u dhashay waa garta muuminna adeer buu yahay عجبون بعدين هذا لو دشي هذا بيجي لو دشي هذا هو سو أنا واسو كرسي هو ويلكي وكلوي عروتي سكوي ما قرت سو ما قرت ما قرت مركا هدو إلهي ذلك هذا إلى أنا قبل دي ما تنسيت دونينا وحوي قبل هذا النسيم محمد أيه أهل أقبل ما هو أهل سوتشرين هذه وأنا واحد شلو ده قبل ولا سو دور شري سفيان لكن ده وحباب اللي بدلي ما تسي وحلو سو دور شري يا وحلا بدلي واسدي ما وحلو سو دور شري يا وحلا بدلي سيدي ما هو صعنا ما يكون صعنا كم صعنا دي لو كم صعنا قال لو كم صعنا وحوي ده أنا لا حاج وصل كاشة واتق على هيركتها نعم قرتي أنت تقول هيركتها هي واتق على أدي ويلكي أديركي ما هو حوي أنا مي وحبال اللي بدله أنا ما اللي بدله صرت دتك يا واحد يقدم بيا واحد بدليل واحد كل يقول أذاك لو وصل معناه نكي وارد كلا وصل أنا ساعد كي بقى واحد بدليل مري هذا أفكي وحكي كيرني يعني أنا وحوي حتى واحد ما إنه واجه هذا سوسي بوسيتين يا ما وين بقى وحقيح مرة marka saddexdaas qaybood ayuu filimka ka kooban yahay Faisal adiga oo mahadsan maxaad ku jeclaatay magaca isma qabato in aad u bixiso filimkaasi maxay sataa fikradda ka dambeysay wallahi su'aashaas dad badan way weydiiyeen haye isma qabato horta macnaha ereyga isma qabato macnaha waxaan ku metelay saddexda arrimood macnaha markii filim la sameeyna ama qiso qofka ka sheekeyna waxa loo baahan yahay hal erey oo isku keena macnaha sheekadaas magacaas waxaan ugu talagalay markii filimka oo saddexda qayb familka uu ka sheekeyna qaybna uu ka sheekeyna qabiilka qaybna uu ka sheekeyna tahriibka kii badda ku dhacay macnaha qof qabanaya ma jiro kii qabiilka macnaha qofka u diidaya macnaha ishay qabiil ahaan qofka u cunsuriyeenaya ama wuxuu sameynaya qof qabanaya ma jiro kii familkiisa macnaha reerkiisa baabi'inayo qof qabanaya ma jiro marka isma qabanayso dadka macnaha Soomaali ahaan markaan fiiriyo qisadii filimka uu ku sameeyay la isma qabana lama dhahayo qofkaas waxaas ku qaldan tahay ama qof waxaas sameynaysa jooji marka isma qabanayso ereyga saas baan ugu baxshay ereyga saas isma qabato isma qabato in Faisal oo muku qorshaysan yihiin filmo kale in aad soo saarto sida kuwan oo kale oo jiraan filmaan badan saan rajeynaa insha Allah waan soo saari doonaa way jiraan sheekooyin badan qoran way jiraan insha Allah waan wadnaa in soo saaro on diyaariyaha in ra'yiga adiga ma iskala iyo diyaarinta sida filimkan oo kale isma qabato mase waa mid isna laga qayb qaato dad kale ay ku diyaariyaan ra'yiga ana iskale macnaha writing macnaha filimka qoraalka ana sameeyay fikradeydii wax walba ana sameeyay qof macnaha igu dhaliyay ma jirto in adiga oo mahadsan Faisal Cabdisamed dadweynaha ku daawanaya maxaad ugu hambalyeelayd ama aad dheelayd ku soo dhawaada in rubaayada ama filimka aad soo saartay dadweynaha kulay way salaaman yihiin filimkan ujeedada u sameeyay waxay tahay in ay ku dhaqan qaataan filimkan kasta hadii laga daawado kulay qofkii daawada jira dad qaadan kuma jiraan music kuma jiro maxaa la waa filim ka sheekeynaya dhaqanka Soomaaliyeed sax ah in music iyo heeso waxba lagu soo bandhigi maayo hees kuma jirto music kuma jirto qof timiisa banaan kuma jiro maxaa la dad isqa qabsanaya kuma jiraan waa filim loogu talagalay in bulshada Soomaaliyeed ay ku tusaale qaadato waxa ku jira caruur dad dhalinyaro ah dad waaweyn cid walba ku jirta aad iyo aad ba u mahadsantahay Faisal adaa mudan bishaaro